iyadoo lagu wada inuu maalinta berita ka furmo shirka dib u heshiisiinta iyo wada tashiga haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa magaalada Muqdisho ku soo qulqulaya wafdi ka kala socday dawlad goboleedyada dalka waa kuwan qaar ka mid ah ergadii ka kala socday dawlad goboleedyada dalka si ay uga qayb galaan shirka wada tashiga iyo dib u heshiisiinta haweenka qaranka Soomaaliyeed marka hore waxa mahad iskale Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maanta anagoo nabad qabo naga soo dejiyay Aliboorka Aadan Cadde marka labaad waxa mahad iskale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo nagu casuumay in aan ka soo qayb galno shirweyne looga tashanayo aayaha haweenka Soomaaliyeed iyo nabadeynta dib u heshiisiinta iyo xaq jirka marka waxaan jecelnahay safarka aan ku imaanay anigoo matalaya state-ka Hirshabeelle ahna gudoomiyaha ururka haweenka ee Hiiraan waxaan leeyahay dadkina soo dhaweeyay ku mahadsan yihiin qaasatan maamada Batuul Axmed Gaballe oo qof si wanaagsan noo soo dhaweysay aadna u soo shaqeysay wax badan Batuul waxaan leenahay soo dhawow ayadana soo dhaweyn doonaa insha Allah waxaan leenahay Muqdisho waa ku soo dhawaanayna waana dhownahay wabillahi tawfiiq anigu magacayga waxa la yiraahdaa Abshir Axmed Cabdullaahi waxaan ka imid magaalada Kismaayo maamul goboleedka Jubbaland Kismaayo ayaan ka imid inagoo wafti badan oo haween ah waxaanan u maanay arrimo wanaagsan oo danteena caamka ah aad iyo aad aan isu dhiirigelin doono haddii alla yiraahdo oo aan ka wada hadli doono shirkaasi oo ay soo qaban qaabiyeen ururka muxuu ahaay haweenka qaranka Soomaaliyeed xafiiskiisa laga soo qaban qaabiyay arintaas oo ah arin wanaagsan oo aan ugu faraxsanahay anaga muxuu ahaay garoonkana laga soo dhaweeyay waa garoonka Aadan Cadde waan ku faraxsanahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay macnaha nidaamkan iyo maamulkan iyo sharaftan loo soo dhaweeyay sida ay si ka wanaagsan waan rajaynaynaa insha Allah Ilaahay idinkiis TV-ga Jubbaland wuu ku amaanan yahay waan una soo dhaweeyay waa dadkayga iga soo horeeyay aniga aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dhamaan waxaan ku faraxsanahay annagoo gabdhihii Puntland ama haweenkii Puntland imaashaha aan maanta caawa xamarnimi aad baan ugu faraxsanahay inta na soo dhaweysay waa salaamantiin oo ay ka mid tahay saxaafadda iyo ururada haweenka madaxdooda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaanka bacdi ilaahay waana nabad keenay ujeedada aan xamar u nimina barnaamij aan ka shaqeynayno 4 sano inuu socdo oo gabdhaha Soomaaliyeed in wax loogu qabto barnaamij ayaan waxaan ka wada tashanaynaa gabdhaha Soomaaliyeed oo xamar ku nool caasimadda ku nool sidaas weeye annaga safarka iyagu waana nabad tagnay dadkaanu ka nimi waa nabad tagnay waxaan u nimi walaalahaya caasimadda Soomaaliya aan u nimi soo dhaweyn fiican baanu ka helnay barnaamijkaasna laba bari buu soconayaa haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wada tashi ayay u yimaadeen Puntland baana ugu dambaysa dadkii gobolada dawlad goboleedada dhan ka yimid sidoo kale waxa goobta soo dhaweynta ka hadlay Warsan Xasan Xagar oo ah isku xiraha dawlad maamul goboleedyada iyo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo tilmaantay inay ku faraxsan tahay soo dhaweynta wafdi ka kala socday maamul goboleedyada dalka gabdhaha maamul goboleedyada shanta state Hirshabeelle hadda noogu soo horeyso Jubbaland Puntland Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxaa noo soo degay waftigii ugu horeeyay anigoo ku hadlaya afka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed xiriirka gobolada iyo degmooyinka agaasima ku xigeenkiisa waxaan maanta aad ugu faraxsanahay oo aad ugu dabaaldegaynaa oo aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa gabdhihii Soomaaliyeed ee ka kala yimi shanta maamul goboleed ee maanta kooxdii ugu horeysay ay garbaheena taagan yihiin waxaan leenahay soo dhawaada magaalada Muqdisho ku soo dhawaada gurigiina ku soo dhawaada Aliboorkina International Aadan Cadde ku soo dhawaada waan idinku faraxsanahay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa gabdhahan waxay ka qayb gali doonaan wada tashiga maxay ahaytoy wada tashiga gabdhaha Soomaaliyeed ay maxay ahaytoy wada galayaan oo ah inay gabdhuhu ka tashadaan aayatiinkooda
maxay ahayd dalka nabadayntiisa dib u heshiisiintiisa fakarka khaldan oo xag jirka wiilasha dhalinyarada lagu dhumiyay inay kulli gabdhaha Soomaaliyeed meeshii xabad la isku adeegsanayay ay hadal ay kaga shaqeeyaan dalka nabad kaga dhigaan waxaanuna dareensanahay haddaanu nahay gabdhaha Soomaaliyeed inaanu dalkan wax badan ka qaban doono wax badan hore uga soo qabanay gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Maama Batuula Axmed Gaballe ayaa dadaal dheer ugu jirta sidii isugu keeni lahayd dhammaan haweenka qaranka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin Maxamed Jawhar warbaahinta dawlad goboleedka Soomaaliyeed Jubbaland magaalada Muqdisho.